waxaan xijinaynaa tixdii saddexaad ee silsilada uu ku leeyahay qabaan bulxan. qabaan bulxan isaga oo aad u ceel qaba oo muddo uu hadalku u bixi waayey, meel uu ka bilaabana garan waayey ayuu wuxuu maqlay in niman hafti ahoo warmoogayaalaho aan waxba ogeynin ay reeraha ku dhex jiraan oo reeraha ogaadeen weeye waa cidahooda oo midhaa ganacsato ahaa. markaa ayay maalin boqore u tegayeen oo waxoodana ka iibsanayeen lana sheekaysanayeen. maalinka dambe ayaa waxaa loo sheegay inay kusoo beegan yihiin. markaas ayaa waxa u muuqatay tani inay tahay fursad uu ugu gabyi karo nimankii harti ee usoo gabi jiray. waktigii ay ku soo socdeen ayuu inta aqal ka galay afadii uu qabay wuxuu ku yidhi nimanka soo socda ee harti haddii ay ku yidhaahdaan qabaan bulxan ma joogaa, waa joogaa de haddii ay ku yidhahdaan qabaan ma joogaase ma jooga ku dheh. markaa ayay nimankii yimaadeen. markay yimaadeenna haweenaydii bay ku yidhahdeen qabaan bulxan ma joogaayo. markaasay garan weyday wixii lagula ballamayo hadalkii ayay siisiiday oo nimankiina meeshii ayay iyagoo taagtaagan ayay kula hadashay. markaasuu inta soo baxay waa intuu sugaayey tixdan tiri wuxuu yidhi habeen sooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii haybsaday waa kuwa qiraya haybkii guriya xilkaalu waa wixii baabad yaqoob. habeen sooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii haybsaday wayaga qiraya haybkii guriya xilkaalu waa wixii baabad yaqoobe. iyaga intay hobaxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay hora la geystaan. iyaga intay hobaxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay hora la geysteen. halmaanina sharmaalku ka yimi laguna hiifaaye helada dhexdeed iyo guryaha lagaga xasow. nacoy nin lagu soo hirto heelan baan ahaaye hadalkayga waa laga hayaa harada ciideede. hawdka la marayaan oo hagaari waa ceebe ma ururan karo buulan oy timuhu herme. ma ururan karo buulan oy timuhu hermeene. waxaan heli waxaan haban karo hatan waxaan haysto. higaygu wuxuu doonayaa inuu hibeeyaye namado hartiya soltamadada laankeentid buu yidhi qabaan bulxan.